waxaan rabaa oo kale inaan idinla wadaago aan idin cadeyno waxyaabihii yararka ah oo maanta ka dhacay airborka aadan cabdulla cusmaan waa wejigii iyo imagekii uu dalka u lahaa airborka caalamiga airborka ugu weynaa howlihiisa iyo shaqadiisa waxaan u baahanahay inay la noqoto mid soo jiidasho leh hadday tahay mid caalami iyo mid gudahaba meel dadka soo jiidato oo qurux badan oo bilicsan oo nidaam iyo wanaag uu ka muuqdo wax kasta oo arrintaas wax ka duwan keenaya mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan ka joojino oo aan ka xalino marka waxaan rabnaa inaan halkaan uga ballan qaadno ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha maanta shaqadaas yarta oo kale oo dhacday inaysan dib dambe aysan uga soo noqon isla markaasna ashqaastii waxa laga yaabaa dad aan munaasib u ahayn inay meeshaan oo kale inay ka shaqeeyaan inay maxaa la yiraahdaa hawshaas inay si aan ula ka ahayn ama si aysan ugu talagelin inay uga dhacdo laakiinse waxaan rabnaa inaan ballan qaadno inaan hawshaas waxyaabahaas oo kale inaysan meelaha u ah waddanka iyo muuqaalkiisa iyo milicdiisa meesha muhiimka u ah inaan dad noocaas oo kale inaysan ka shaqayn oo aysan joogin dadkii maantay aan isleenahay waxyaabahaas shaqaqooyinkaas yararka sabab ay u ahaayeenna run ahaantii waxaan haddaba gacanta ku haya hay-adaha amniga oo howlahan shaqada ku leh ayakaana tallaabooyinka ku habboon oo sharciga ah ayakaa ka qaadi doona marka waxaan rabnaa inaan airborku hawshiisa sidiisiiba u socotaa wax mushkila iyo carqalad iyo wax yar oo istaaga marna inaysan soo gelin waxaan rabnaana airborka iyo hay-adaha kale oo anagu hadda mas-uuliyadoodana saaran tahay inay ahaadaan hawshoodan inay sida ugu muhiimsan inay u gutaan arrimaha duulista iyo airboradu oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo dalka soo kabashadiisa iyo muuqaalkiisa wanaagsan qayb weyn ka qaadanaya waddanku horumar fiican ayaa laga gaaray sidaad la wada socotaanoo maantay maxaa la yidhahdaa Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada East Africa qaybahooda ugu mugga weyn dhinaca hadday tahay airborada ama culeyska ama diyaaradaha imaanaya siday yihiin diyaarado fara badan ee hadda international ay waddanka soo yimaadaan kuwa fara badan oo kale inay saf ugu soo jiraan ay rabaan inay yimaadaan marka ma rabno in muuqaal xun oo munaasib u ahayn in laga gudbiyo cid kastoo waxyaabaha sahli kartana inaan ka hortagno oo si muglo wanaagsan inaan uga hortagno marka waxaan leedahay aan rabnaa inaan idinla wadaagno inay hawshaas aysan ahayn sida loogu buunbuuninayo baraha bulshada iyo wax u dhowtoon inaysan ahayn airborkana wax mushkila inaysan ka jirin shaqaqoonkaasi carqaladahaas yarka oo maanta iyo waxaas yarka waqtigaas yarka dhacayna haddii la yidhahdo waxaan idin ballan qaadno inaysan dib dambe aysan u soo noqon oo aysan dib dambe u dhicin runtii airborka sida uu sheegay wasiir Durraan Axmed Faarax oo iga horreeyay airborka aadan cabdulla cusmaan waxa waaye waa wejiga waa meel aanan u rabin runtii in haba yaraatee wax dhibaato ama nabar ay soo gaaraan sidii uu wasiirku u sheegana waxyaabo saaka ka dhacay waxay ahaayeen waxyaabo taabanaya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan raalin aanan ka ahayn arrintaasna markii ay dhacday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba aniga iyo wasiir Durraan waxa ay nagu soo amreen oo ina fareen in baaritaan lagu sameeyo oo la soo baaray sida wax u dhaceen oo haddii ay hay-adaha ay ka dhaceen iyo dadka ay ka dhaceen lala fariisto la dabagalo cid alla ciddii arrintaas ay ku caddaato inay qaladaadka noocaas oo kaleeta ay ka dhaceen ama ka yimaadeenna tallaabo ku habboon in laga qaado waxyaabaha wasaaradaha heer wasaaradeed oo nala egne annagu tallaaban ka qaadi doonaa degdeg ah marka aan baarna kadib waxyaabihii u baahan in go-aan ka weyn laga qaatana waxaan ula noqon doonaa madaxda laakiin sida wasiirka iga horreeyey wasiir Durraan Axmed Faarax uu sheegay waxaanu iska kaashanaynaa waxqabadkaas waana ka xunnahay muuqaalkaas aan habboonin oo dhacay inkastoo dhibaatada dhacday aad u yareed oo ay ahayd sijiid iyo isku waxyaabaha ka dhaca dadka wada shaqaynaya dadka shaqadu ka dhaxaysa inta badan wixii dhex mari jiray ayay ahaayeen waana ognahay sijiidku waxa waaye dadka ka shaqa ka dhaxaysa oo dhan waa ka dhacaa ha yeeshee meeshaan oo kale meesha ku habbooneed ma ahayn annagoo fulinayna runtii amarka madaxweynaha iyo prime ministerka annaguna waajibaadkeena shaqo fulinayna labadaba waxaan ka qaadanaynaa tallaabada ku habboon waxaana rajaynaynaa in ay noqoto dhacdadaani dhacdo ugub ah oo aan soo noqon airborkuna muddo dheer oo furaa sumcaddiisuna way fiicneed
intii oo furaa oo muddo dheerana kama dhicin waxyaabahan oo kale marka dhacdo uguba oo soo noqon horena u dhicin haddana aan soo noqonin inay naqataan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka raali gelinaynaa wax kasta oo muuqaal oo qaabooneyn oo wajigooda ay ka dareemeen marka aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.